السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال كسو دواad barnaamijka kulanka Kalsan oo ah toddobaadle aad aalaba xilligan oo ka daalactaan muuqaalbahiya Kalsan TV barnaamijka wuxuu idin ka yimaadaa wadamo kala duwan oo ku yaala caalamka toddobaadkan wuxuu idin kaga imaanayaa studio telefishinka ee magaalada Muqdisho hadba barnaamijka kulanka Kalsan waxaan ku falaqaynaa topic aan islaanahay bulshada Soomaaliyeed dabcan waa ay danaynayaan siyaasad ahaan dhaqaale ahaan arrimo bulsho ahaan iyo guud ahaan xaaladaha kala duwan ee dunida ayaan uga faaloonaa toddobaadkan barnaamijka kulanka Kalsan waxaan ku falanqeynaynaa xilliga kala guurka ee wadanku uu marayo siyaasad ahaan doorashada iyo sidoo kale xilliga abaaraha oo dabcan dad badan ay iyo duunyaba la soo warinayo inay ku leedaan ama ay u dhinteen waxa barnaamijka kulanka Kalsan marti inooga aha waqtigiisa qaaliga ahna toddobaadkan inoo huray mahadiya ka gaadhay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena ahaa eekis gudoomiyihii baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweyne ku soo dhawow telefishinka Kalsan madaxweyne kulay uma maanta ku dhihi maayo waa kuma madaxweyne Shariif Xasan qof popular la yaqaano dabcan siyaasadda dadkii dhidibada u soo taagay kamida tahay oo dabcan wax badan soo qabtay dadka sida aadka ah saameyntii ay lahayn loogu xasuusto siyaasadda wixii ka dambeeyay burburka dawladda dhexe ama wixii ka dambeeyay carto balse kooban dabcan xilli kala guur wadankii maraya doorashadii waa wareertay magacyo kala duwan bay yeelatay bal siyaasad ahaan iyo doorasho ahaan adoo soo koobaya xilligan Muqdisho joogtaa waaya arag siyaasadeed oo dheer garada oday ah wax badan u jeeda wax badan maskaxdiisa ay ku jiraan dabcan duruufihii kala duwan ee wadanku uu soo marayna ka warqab oo waaqic ah tahay bal xilligan adoo soo koobaya siyaasad ahaan iyo doorasho ahaan xaaladda dalku halka ay marayso بسم الله الحمد لله horta ilaahay baan ugu mahad celinayna marka telefishinkana iyo adiga iyo mawluud ahaan waa idin mahad celinaa runtii waa ku mahadsantihiin ma sha Allah horta dalka doorasho xilligeeda waa la soo dhaafay hal sano xoogaa ayaa socdaan lis dooran oo jahwareera la jooga haddana waxa socda ani kulli doorasho kuma magacaabi karo xulis kuma magacaabi karo magacaabis kuma magacaabi karo waxaan u jeedaa waxa intaba ka sii hooseeyo oo qof fikirkiisa wax lagu magacaabo dad badan doorashada ugu liidato oo dalkan laga soo qabtay oo dadku ay hoos u dhigayaan waxa ahayd tii 2012 oo odayaasha ay magacaay xolayeen odayga asigoo qabiilkii iyo aqoon-yahanadii iyo qabiilkii qeybihiisa kala duwan iyo soo qabiilkii naftiisa dhowraayo ayuu wax soo xuli jiray laakiin hadda waxa dhacday qof aan qabiilna dhowraynin inuu ninku rabo iska soo magacaabo saas ay tahay ayaa doorasho leeyahay marka doorasho ma magacaabistaas waxaan rajaynaynaa inay si nabad inta ku soo dhamaato si nabadan haddana oo madaxweyne la doorto uusan noqonin madaxweyne in la magacaabo taa un baan ugu daran ma sha Allah hadda meel kale laga sheegi karo ma jirto inta baarlamaanka soo dhamaado biidan leel kariim si nabada ku soo dhamaado dadka Soomaaliyeed qabiil lama tashanayo oday lama tashanayo qof la xurmeeyo habeeraata ma jirto marka hadii xulashadaas inta soo dhamaato si nabad ah inta ku soo dhamaato madaxweynuhu aanan sidaas noqonin oo madaxweynuhu dadkii 329 Soomaaliyeed si kastaba ku yimaadeen la soo keenay inay degdeg isu doortaan taas un baan hadda badbaado taas ay noqon kartaan qabo madaxweyne commentiyaro hadalkaaga aan kala soo dhaxbaxay rabaa inaan dib kugu soo celiyo maadaama waqti badan aan kugu soo laaban karo oo san jirin waxa la leeyahay dabcan kaliya ma aha waxa tiri waxaan hadda socdo doorasho kuma tilmaami karo in badan oo indhageerka bulshada waxay leeyihiin iska dhaaf doorasho ee xataa xulashadii la yaqaanay ma aha oo way dhaaftay bal dabcan maskaxda waad ka shaqaysiiso dabcan xaaladda iyo say u socoto waad aragtay wali xataa erebixin inaad u raadis isku dayday والله أنا كنت أربحين ومر هذين ما أنا لو هلي كر أري لو هلي كر ما بقول هواي أري كستول لو هلي لها أنا كهوس سنة من سنة ما شاء الله تهاي ما هي لها كبرينا ومدن سومالية دواتين بدن يسومرين ديفكال ومن نقول كران عدو باهستو وأفرت الجسم الله بحكر ما جرتو ما الله سانكرت ما جرتو أوارا هستو دواتين باهستو
marka dadka in colaad iyo rafaad loogu celiyo ma rabno marka anaga dimuqraadiyada waa erada dhaminay xarag isku dhiibkii la arkay runtii xogaa waa loo bagsanaa in haddii lagu sii socdo marka dambe qof iyo codkii inta la gaaro dadka Soomaaliyeed ayagoo nabada ay doorasho gali karaan mar walba marka taasaan rajaynaynay haddana tii un inaysan naga dhimanin oo waxaan rabnaa un inta dadkan la soo xulay ama la soo magacaabay si kasta aan iraahna la sukeeno ee madaxweyne marnoo doortaan daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka kulanka Kalsan oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka ee magaalada Muqdisho dabcan toddobaadkan waxaa marti iigu ah saaxiibada gadaal naga soo biiray madaxweynaha hore koonfur galbeed Soomaaliya ahaana sidoo kale soo noqday gudoomiyihii baarlamaanka federaalka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dabcan aan ugu talagalay inuu bal wax badan oo humaag uu bulshada uga jiro wixii karaankiisa awoodiisa ah waqtigiisa kooban inuu bulshada uga faa'iideeyo madaxweyne waxaad ahayd aasaasihii koonfur galbeed Soomaaliya dabcan waxaan la soconaa waqtigii iyo maskaxdii iyo fikirkii iyo juhdigii aad soo gelisay koonfur galbeed dhanka kale dadka siyaasadaha naqdiya waxay dhahaan dabcan madaxweyne Shariif wax badan wuu qabtay laakiin dibkii ku dhacay maanta waxay qayb u tahay daba socota qayb kamida mirihii uu dabcan hore isagoo uga tagay oo xilligiisii wixii uu qabtay ee positive-ka ah ka sokow siyaasadda isaga isku koobay dadkii ka aragti duwanaa afku ka xiray taasa keenta marka in isageena ay maanta ku timaado bal dadkaas maxaad hadalkooda ku qeexaysaa ma xuma kulay anigu warku iska cad yahay de airbordu waa jireen qofan airborder ugu diiday oo eri ma soo dhoofi karo meel hebel ma imaan karo san jireen ama maleena si fiican anigu hadaan wax sameeyay tan dheeraad tahan qaba ay marka dadku bani'aadan aniga wax walba ma sixi karo wax qaldaa waxna waa sax qof inuu wax sameeyo rabo oo wax oo dhan sixi karo la heli maayo inaan wax saxay ina wax qalday laakiin waxaan aaminsanahay intaan saxay inay badan tahay aaminsanahay dadkana doorashadii ugu dambeysay 2016 ani qof waa la jiri karay laakiin laba qof mar walba waa tartansiinayay wayna kala badinayeen laakiin anigu hal qofna kaligiisna ma dooranaynin dadkana qabiilada ayaa keensanaya ergadooda erga aan u qorayna lama soo heli karo laba qof aan tartamaysay kursi ugu darna 26 ay kala heleen marka hadii la yiraahdo maxaa meesha u joogtay waa wax kale laakiin aniga dadka wax dhibaato aan doorashadas ugu geystay ilaahay awoore ma jirto siyaasina aan sidiisaba in wixiisa loo baneeyo wixiisa raasdo dadkiis ka raasdaan raali ka ah marka anigu hadaan wax sameeyayna mid hada dheeraad ay ugu tahay airport qofka ma celinay airport iyo inaan diyaarad kala wareeg dhahan qof ma soo qaadi karta aan waa wax idin baad leedahay waa taas dheeraad ay ugu tahay haday jirtaan waxaad xilliyada la soo maray qayb badan oo kamid ah aad ahayd hogaamiye dawladda Soomaaliya dhaxdeeda awood adag iyo awood weyn ku leh dadka go'aamada gaara inta badanna farta lagu fiiqo saameyntooda markii la eego ayaad ahayd dabcan kartidaada iyo dabcan waxqabadkaagi iyo siyaasadaadi iyo mowqifkaagi ka turjumaysay xilliyadii dambe siyaasadda waxaad ka ahayd dibad joog sidoo kale saaxiibadaadi aad isla soo jabhadayseen in badan oo kamid ah raggii waaweynaa saaxadda ay ka baxeen oo kuraastoodii rag kale ayaa xilligan ku fadhiistay inkastoo xilku uu meertay yahay wuxuuna uu calaf yahay ma isleedahay adiga inkastoo adiga uu kuusii dheer yahay xil madaxweyne siyaasadii dabcan levelkii baarlamaankii iyo qorshayaashii kale adiga iyo saaxiibadaadii horay siyaasadda usoo karkarin jiray xilligiina waa soo qaadateen oo xilligan waxaa la joogaa xilliga dhalinyarada iyo isbedelka ما هورتني وأنا هذا باور كده شيء كيسنا ميلان كجاري ما أمسني هذي بقف وكتر دريا حكوم كان سوجوجان أنا سويست صوته ولي قدوم برلمان ما بدافع قدومي برلمان وحب قامي وأنا ما سمعي سيفي عن marka waxaan ka qeylii jiray wiligeed waxaad gudoomiyaha baarlamaankan hal wareejiyo oo anagana qolo kalena mar ha qabato balorta asiga dibka uu leeyahay ama faa'iido uu leeyahay la arko baba leeyahay diiday marka horta aniga waxaan ku joogay gudoomiye baarlamaan marka dawladda dhexe aan joogay marka gudoomiye baarlamaan oo waliba dawlad ku meel gaara oo dhaqaale haysanin tabardareedu waa la ogyahay marka waxaan qabaa dawladdu waa ugu xoog badneed ani isma lihi
waxaa soo haray siyaasaddu sidii birid laga soo galay leedahay mid laga baxa ma leh nin walba markuu dhinto ka baxaa si fiican marka haddii hadda uunana dardar geliyo in nagala bixi la damcana kolley kadankaan u fadhiyaynaa oo kolba hadda meel anigu kolley meelka dukaan hadda furan maayo waa celcelinayna anoo dukaan furtay oo gadaa si fiican lama arkaayo hadda anigu siyaasaddaas maanta cimrigay ka harsan siyaasaddaasaan ku jiri doonaa haddii albaabkan lii diido albaabka kalean soo garaaci doonaa kulley way micno badan tahay marka waxa qaybta kale wax iga goyso wixii ilaahay igala kulmiyaba marka saaxiibo ani waxaan aaminsanahay in wax baawar oo dowladnimada kuma helin anigana madaxweyne noqdo baawarka aan mar soo arkay aadan u rabay iyo ma suurtogelin haddaan musharax ahay waxaan isleeyahay haddii ilaahay had ii sahlo dadkaan oo la soo xulay oo la keeno inay ilaahay doortaan haddii ilaahay ku hagaajiyo haddaan musharaxan ahay inaan hadda aan awooddaa sheegay inaan helo haddaan rabo sidii aan bilowgii barnaamijkan ku sheegayba waxaad ahayd aasaasihii koonfur galbeed xilli adag dabcan matalaad ahaan siyaasad ahaan duruufo ahaan dalku uu ku jiray baad koonfur galbeed waxa waaye wax badan ka soo qabatay xilligaagii managementiga ama maamulka dabcan halkii aad soo gaarsiisay waad ogeyd iyo halka maanta ay taagan tahay ee madaxweyne cabdicasiis laftagareen si kale haddii aan u dhigo xilliga adigu aad maamulka koonfur galbeed waxay ka mid ahayd maamulada siyaasadeeda cidna aysan ku tashan karin la yiraahdo waxay ka madax bannaan yihiin maamulka inta jooga oo in loo meeriyo oo la yiraahdo waxa samee naadir bay ku ahayd haddana waxaa la yiraahdaa dabcan markii la tirinayo madaxweyne goboleedyada ama isteediyada waxa waaye qoorta gareen iyo lafta gareen iyo hebelow halkaas loo tiiriyaayo waxaa la yiraahdaa hadda koonfur galbeed markii xasuuqa xanta la joogo go'aamadeeda fariin qoraal baa lagu gaaraa ama villa Soomaaliya laga go'aamiyo wixii loo go'aamiyana qaadataa bal isbarbar dhigi kartaa labada xilli والله أنا ما ده كرو مثلا عبد العزيز كل يوم هذا معمول كسيجا جوجو سيدو هو قامين أسيجا أنا وأنا من سنة إنه من سوماليا دونين دليرة وديك المرفلا ودهجان كانوا هاي وياي مركو هجان كيس إنه ضد كلا لطة الشدة إنه أسيجا جارو أسيجا تاس أنا وحكم مشي كرو لكن هو حاسلاه إني بس يبغى حكم معمولا مركا أنا جا دولة فدرال كحل جاهز جرتي صاحبان هين dawladda markii dambe hadana markii isbedelka oo dhacay dawladda aan timid saaxiib ma ahayn markaas inuu dawladdiisa saaxiib iskala ahaado oo iskala socdo kulli aan wax dhibaato uma arko laakiin asiga laga rabaa ummadaas inuu mustaqbalkeedii iyo wanaageedii aragtideedii iyo dhulkeedii iyo horumarkeedii Soomaalidu waxba isla leedahay waxaan waa kala leedahay marka wixii dadkiisii iyo dalkiisii ay gooni u leeyihiin ama go'aamaha ama sharafa asiga laga rabaa inuu ilaaliyo haduu ilaalin waayo in asiga dhibaysa adduunyo aakhira basaan isla aniga laakiin mas'uuliyaddaas asiga saaran tahay madaxweyne waxa tahay musharax madaxweyne federaalka inta aan ka warqabno sidoo kale waxaad isku dayday inaad ama aad ahayd musharax golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa laga horstaagay kursigii xildhibaannimada ee aad u istaagi lahayd dabcan waxa lagu diiday inaad tagto baydhabo oo doorashadu ay ka dhici lahayd maxaad is leedahay waad sababsatay may wax dhawaataa male ana horta markii waxaan filayaa inaan meesha inta tago hadii dadka kale la magacaabayo hata aniga inta culeys la isaaro qof dhaqaale la siiyo siyaasadda galiyo ila tartansiyo xarafkaas oo qaatay sidaas aan anigu tarjeenay intii ayada ma aysan dhicin sida haduu sameeyay aan waxa isleeyahay madaxweynaha sidoo uu sameeyay sida markuu sameeyay asigana uga fiicnaad anigana iga fiicnaad ninka madaxweynaha la jiro oo dhaqaale siinayo daba joogo oo ergada kala hadlaayana inuu iga badiyaaba laga yaabi lahaaba markaas anigana in laga soo badiyaan lahaa laakiin in airportka Muqdisho liigu celiyo liraa diyaaradda kuma keeni karto baydhabo magaalada aan ku dhashay oo intaas soo gaaray oo soo maamulay aniga inaan geysan dambi noocaas aan aaminsanahay marka sabab kasta ku timaado xidhabaanka lagu diidiyaan oo arkay xidhabaanka iska dhaafata aniga waa liidhi karay oo wax weyn oo maanta xidhabaan madaxweyne Soomaaliya rabaa hadaan helayo marka xidhabaanka ta iska dhaaf waa liidhi karay intaas oo dhiba in la gaarsiiyo ama la isku calool xumeeyo oo ma jirin marka taa waxa ka sii daran anaga odaygeeni oo aan waliba u qeylii jiray oo 135 ku jiray oo la yaqaano nin shariif ah وملاقيني قبل إنكريب ولا لسه أجمري ولا إنكرا لسه صورتي. مركو حنا حتى حلوش وجشي كريم مركو أنت أضيق اللي أنت لو يرو لي هذا أنا جا نكاس
isma qaadnay nin kala soo qor leeyahay ama hebel soo qor hadii leeyahay ama kuma gudbin kara ninkan ama gudma nin kala keen hadii leeyahay taa mushkila ma laha laakiin asigana lacag maro anigana airportka leeyahay celiyo arin aad iyo dheeraad ugu ah oo anigana ay anficin Abdiaziz naftiisina san anficin aan u arka aniga dibban taariikhda ku yar celinaya waxaad warbixin naga siisaa baarlamaankii xorta ahaa ee aad hogaaminaysay xilligii Casmara dabcan lana sheego inuu sabab u ahaa guulo weyn oo xilligaas la gaaray dabcan gudoomiyaha baarlamaanka aad ahayd adiga group kala xagga aaday ugu dambaysteena isbedel meesha ka yimid dabcan bal sheekada iyo xogta ku jirta hadii aad nala wadaagi karto lartantaas ana aad u dheero waan la soo dhaafay waqti dheer aheed dadkuna wax kasta la sameeyo moogta wixii nin la fiican inay la xun yihiin anaga markaas waxaan u arkaynay in maxaakiimta iyo dawladda markaas jirtay inay heshiyaan baan anigu aragtideen ahayd tii ayada markii la diiday khilaafkii ka dhashay baan anigu ku baxay horta sida runtii ah waxaana islahaa hadii maalinta ayada dawladdii TFG-da markaas jirtay iyo maxaakiimta dii markaa heshin lahaayeen ilaahay baa og laakiin waxaan aaminsanahay dalka Soomaaliyeed dhibaatada iyo shabaabkan iyo meesha dan uu gaaray inuu san gaari lahayn si fiican markii la fahmi waayay markii waxaan ugu qasabtay markii aan meesha ayada markii aan ka tagno kadibna alxamdulillah sheekadu dheertay waa la soo heshiyay waa la yimid hadii kulli uun hadii la hadana tii ayada aad baa uun hadda la daba joogaa inta hadda aan ka baranay siyaasadda Soomaaliya dabcan siyaasadda guud kama hadlaayo musharax kasta oo Soomaali ah waxa la yiraahdaa musharax waxaan u socdaa mid madaxtinimada musharax keligii isu wada oo dabcan isagu si madax banaan isu wada ma jiro nin walba dal kale iyo dawlad kale ayuu dabada kula jiraayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad dabcan masaalix horeyna ahaan jirta haddana socota madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan sanadkan dawladda ayuu ka socdaa oo dabcan wadato horta waa la qariyaa taas hadii jirto nafteeda TV-da laga sheego laakiin aniga wala ay wadato ma jirto waxaan ka rajaynayaa in ay wataan qolada aan ka dhashay Soomaalida oo dhan aan ka dhashay gaar ahaan digile marfleen ay wataan oo madaxweyne ila raadiyaan aniga ka rabaa intii dawlad kale oo ajnabi ah kaalmeyn lahayd reerkaasoo wali madaxweynenimada intii hadda Soomaaliya xornimada qaadatay san madaxweynenimo nin ayaga ama goboladaas ku dhashay ama ayaga ku abtirsadoo san wali noqonin afkaan ku noqon lahaa ayagina igu taageeraan aan ka codsanaa kuwa dadkaas aan aniga ka filayo taageeradeed dabcan sababta aan ku weydiiyo waxay tahay qofka hadii bulshadiisa uu ka soo dhaxbaco dabcan dhaqaalihii iyo kaarkoodii uu miiska ku soo fuula go'aamada isaga iskale wuxuu dib wax ugu celinayaa dalkiisa iyo dadkii isaga soo saaray ee dabcan isaga deegaankiisa ah laakiin inta badan waxa uu dhacda in wadan kale qof ay soo saartaan uu yiraahdo maanta ana garab idinka baahan berina wixii wadanka aad uga baahataan aniga dadka deegaanka reer koonfureed aan taageerada ugu horeysa ka rabaa kadibna Soomaali weyn oo dhan inay taageertaan aan ka rabaa maadaama aan oday inta soo joogo maalin walba waxbaan rabaa dhijir inay ismarsiyaan oo kalkan ay si fiican Soomaalidu dabcan markii la yiraahdo xagga gudaha loo daandago waxay xilligan wax ku qaybsataa waxa la yiraahdo 4.5 ama habeeleed kursi baad u tartantay dabcan baydhabo yaalay waati aan ogeyn yaad rabtay inaad u tartanto oo aad musharax u ahayd dabcan ay suuragal weysay inaad garoonkii Muqdisho ka baxdo adoo sheegay inaad xaq u lahayd oo aad tagto wixii carafkaaga ahna aad ka soo qaado dabcan isla beeshaada kursi Shangaani yaalo oo hadii aan qaldaneen dabcan ay u doodayeen xuquuq ahaan ayaa jiray oo dabcan laftiisa miisaani in culays la saaro u baahnaa wixii qaldan waad isxi kartaa inaad kursiga baydhabo lagu diiday Shangaani u soo wareejisato oo aad xamar ku qabsato miyaadan xaq u lahayn ama kursigaas baydhabo yaala oo baydhabo baa lagu dooran karaa ama anaga la doorto ama qof kale loo doorto qofkaas kursigaas si kasta la yeelay ergad in kasta oo ergadaba loo baahnayn laakiin kursigaas ergadiisi iyo meeshu ku saleysan baydhabo kaas baydhabo yaala ama aniga hal isiyo ama qolo kale hal siiyo kaas baydhabo booli doona insha Allah wax dhibana ma leh hada qof kasto oo yimaado reerkaas meeshaas baydhabo lagu magacaabo ama lagu siiyo ama lagu doorto magac kasta loo bixiyo dhawaato ilaada ma leh
هذا واحد شيكتي طبعا isla hawshii doorashadan ku dhex jirnaa doorashadii xilligeedii waa la soo dhaafay 4 sano ay dawladda hadda jirta ay mandate haysatay dabcan sanad kala raacay oo 5 sano waxa sidaas ku haysataa in kasto sanad kamid ah uusan sharci ahayn ama uusan ruqsad iyagu ay lahaayeen uusan ahayn tii waxay keentay wadankii qalalaasay kala duwan oo galo dabcan buuqii ka dhashay wada ogeedeen muddo kororsigii oo dabcan dadkii taageeray inuu isbedel yimaado aad qayb ka ahaydeen waxa ka dhashay duruufo kala duwan oo burbur iyo in ciidamadii dabcan qaranka sida lagu onkay aad ogeedeen waxa dhaxdo uu tashwiish soo galo dhaqaalihii wadanka oo dabcan saameyn ay ku yeelato duruufihii dadkii deegaanka iyo bulshadii ayna u sii dheer tahay abaar xoogan oo wadankii uu ku jiro dadkii in badan oo kamid ah duruufo kala duwan bay la nool yihiin ma isleedahay isbedelkan hadii labada bilood ama bish soo socota si degdeg ah aan loo isbedel u imaan oo san u dhicin dalkan xaaladda xilligan uu ku jiro meel ka darbi aadaysa doorantii aad u fiicneed 4 sano markay dhamaatay inuu isbedelka uu dhaco marka duruufo jira dartood ama dadka xukunka hay sii jiitaan ama doorasho dadban oo aydan nafteedaba iska mushkiladeedii waqtigeeda iska leh laakiin hadii markii hore laga diyaar garoobi lahaa waxa isla xilligeeda waa lagu qaban karay runtii maamulka hadda jiro oo madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo dadku ay jaha wareeriyeen qof iyo cod aan aadayna dhahan qof iyo codna lama aadi karin afgooy lama tagi karo balcad lama tagi karo marka meel aan balcad la tagi karin afgooy la tagi karin doorasho qof iyo cod lama aadi karo sanadkii hore anaga markii la fiiriyay doorashada dadban markii la aadayay doorashada dadban jawhar iyo baawura lagu tagay hadda balcadna lama tagi karo ayadoo saas ay tahay horta waqti badan wax lagu soo dhumiyay qof iyo cod aan aadayna markii haddana taas laga soo baxay haddana in laga heshiiyo habkii la soo dooran lahaa nafteeda haddana waqti badan la geliyay runtii meeshaas waqti badan ku dhumay أنا waxaan iska laan qabaa eeda iyada dadka madaxda ka gaar ahaan madaxweynaha ayaa eedaas iska leh hadda si degdeg ah in la soo doorto waxa dhaama male sababtoo ah wax badan oo hatta dawladii ku kaalmeyn lahaa doorasho ku jirtiin ay ku leeyihiin taa waxay ku siin lahaayeen ama ay ku diidi lahaayeen naftooda hatta ganacsatada meel walba ay wax yaran tahay doorashada ma dhici kara marka waxaan rajaynaynaa in intii dhiman aanan waxba la sugin oo waxba aan la daahin oo doorasho degdeg loo galo hadii la is doorto si nabad ah la soo doorto oo si kastaba ku timaado oo qof Soomaali la doorto aan waxa leeyahay dalkan uu hagaagay dadkan way degayaan waxa alaala wixii soo qaldamay naftooda dadka Soomaaliyeed xalay dhalay inay ka noqdaan marka hore u socdaan doonaan baan aaminsanahay marka doorashada aad iyo aad loogu baahan yahay dalka abaaraha ka jirto colaadaha ka jirto inta bana dawladnimo wax looga qaban karaa dawlad waliba mandate haysato cusub oo dad hogaaminaya dadka Soomaaliyeed ayaga dooran doonaan kulli hogaankoodii dad oo hogaankaas dadkana ka naxay dalkana ka naxay hogaankaas qabto ummadda u qayliyo ummadda u adeego in la hela laga maarmaa hadii la helo waxaan isleeyahay dhibkan waa laga bixi doonaa hadii laakiin la heli waayo dhibaatada way sii kordhaysaa daawadayaal wali waxa daawaraysan barnaamijka kulanka kalsan qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay waxa marti inoogu ah madaxweynaha hore koonfur galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha hore baarlamaanka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan Kalsan TV ayaa nagala socotaan dabcan Facebookga Twitterka YouTubeka iyo baraha kale bulshada ee telefishinka uu leeyahay waa naga heli kartaan madaxweyne aad mahadsan waqtiga aad inoo gaaban waxaad sheegtay in wadanka in loo turo dabcan ay muhiim tahay si dadka iyo dalkan loo badbaadiyo waxa hadda gabagaba ah doorashadii dabcan say rabtaa ku dhacdo golaha shacabka waxa la leeyahay xubnaha baarlamaanka waxa jiro xubin baarlamaan oo dabcan intii soo baxda kamid ah oo $300,000 la dhaafsaday in la soo saaro $200,000 la dhaafsaday in isaga la soo saaro si bari kamal isagana loogu gudbo $100,000 la dhaafsaday dadkeena iyo duunyadiina baahi bay u dhamaanayaan ma la awoodi waayo dadkan dabcan intaas oo kharash ku bixina dabcan dadkii siyaasiyiintii waaweynaa ee dalkan aad kamid tahay bal in dadkan dhamaanaya inta la eego doorashada iyo tan la isku garab wado la badbaadiyo dadkii dalkii adoo inoo soo koobay saaxiib aan hadda doorasho kharash ku baxay ma xaqiijin karo laakiin doorasho horta mar walba kharash waa galaa meel kasta ay joogto doorasho hadii la yiraahdo nooc kasta la soo doorto hatta qof hadii la soo dooranayo qofka campaign buu galayaa
idaacado iyo baawar iyo adduun oo si kasta u kala dadbanaato doorasho kharash baa lagu galaa si fiican laakiin ayadoo doorashadan kharashka lagu galay in dadkana loo adeego dadkuna dawlad ay ku kalsan yihiin oo mandate haysatay inay helaan anaga mandate-kan dhamaaday wax badan oo dawladnimada laga heli lahaa ama dhinaca amniga loo heli lahaa ama dhinaca horumarinta ama dhinaca loo heli lahaa abaarahana runtii waa inuu soo noqdeen markii laga fikri lahaa abaarahan horta waxa ku fiicnaan lahayd in inta laga fikiro keedad la sameeyo biirkeeda la sameeyo raashinkeeda la sameeyo daawokeeda la sameeyo runtii marar la isku soo qaaday oo qoraalo laga sameeyay waa jirta UN-ka iyo caalamka lala kaashido iyo dawladaha oo anagana kaalmeeyo in keed la sameeyo mar walba abaartii markay soo noqoto ay dhacdo oo la ordaayo kharashkana waa kasii badanaa dadkina hab lama gaarsiin karo sababahaas runtii amni la'aanta dhib badan ka keentay dhinaca shabaabka oo dadkii isku gudbin meelihii aan la soconin la ogaan karin horta dhibaatooyinka meelahaas ay ka socdaan marka waxaan rajaynaynaa abaarahan soo noqday inuu ilaahay horta naga joojiyo haddii aysan soo noqonin intaysan soo noqonin wixii hadda ka dambeeya dalka inuu keed yeesho keed raashiin iyo keed daawo iyo keed biyo si loogu badbaado haddii ay xaalad emergency timaado taasaan rajaynaynaa gabagabadii waxaad haysataa maanta fursad dahabi ah oday Soomaaliyeed baa tahay waxaa ku daawanaysa balaayiin Soomaali ah oo dhaladan ka daawanaysa shanta qaarada dunida ee xilligan aan ku sugannahay dabcan joogta maxaa dhaxal ah oo dabcan xilliga ciriiriga ah wadanku uu marayo doorashada halkii maraysa la socota tii waxa soo dhamaatay aqalka sare tii golaha shacabka gabagaba tii madaxtinimada dhiman si dadkan iyo dalkan loo kala badbaadiyo Soomaaliyana ay qayb uga noqdo dalalka dunida waxaan rajaynaynaa ilaahayna aan ka baryaynaa in doorasho nabada oo inta la isku yimaado la is doorto dadka Soomaaliyeed ayadoo nabada oo dhibaato dhicin xukunkuna haddii qolada hadda joogto la doortana si nabada ugu wareego haddii qolo kale la doortana si nabada inuu xukunkaas u wareego dadka Soomaaliyeed iyo adduunka basaas anfacaysa taasaan rajaynaynaa biidinillaahi alkariim ilaahayna aan ka baryaynaa taa haday dhacdo ani waxaan is leeyahay wixii dhib oo dhacay waa laga gudbi karaa guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kulanka Kalsan oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka ee magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaan ku falanqeynaynay siyaasadda doorashooyinka iyo xilliga kala guurka wadanku uu marayo waxa barnaamijka marti ugu ah waqtigiisa qaaligan inoo horay madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyihii hore golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne شريف حسن شيخ آذن وطبعا إنه وقتي قالي بالشدة وقفها إيديو بلوحي إليك جرنسيين وقت جوابه مدحونا ما هسنتهاي جودهان وأنا أنت برامج كلن ككالسن وقابين تيجود إنجنير زكي يا تيم كي كالسن تي في محمد عبد القادر أي إسنا برامج كقيب كاها يا سيدو كلا سعيدنا بدون وطبعا صارت برامج كقيب كاها وبهدي كالسن تي في وإذن له أمان الله مدحونا ما صدق ما شاء الله تحكي